من فلق الظلمة أنوارا من أنشأ ليلا ونهارا dugsiga hoose dhexe sare ee al-anwaar maanta waxaan bilaabmi doonaa tartan waxaan ku maadsan Allah subhanahu wa ta'ala sidoo kale waxaan ku maadsan guddiga tartanka isku soo agaasimay awood badan geliyay dadaalka faraha badan geliyay su'aal diyaarinta weydiinta kulli hawsha boqolkiiba boqol ah gudoomiyaha uu yahay injineer Axmed Salabaan ustaad Zakariya Cabdi Xasan ustaad Maxamed Cabdi Maxamed sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta qaaliga ah oo aad sharafta badan leh oo ku dadaalayaan deganaanshaha iyo habsami socodka tartanka inuu noqdo tartan aad u qiimo badan maanta tartankan maanta noo furmi doonaa ma ahan maalinta ugu horeysay ma ahan sanadka ugu horeeyay iskuulka al-anwaar weligiis waxaa qaban jiray tartamo noocan oo kale ah alxamdulilah guulo waaweyn waa lagu gaaray in guulaha la gaaray sanadka hadda la soo dhaafayay oo la xusi karno waxaa ka mid ahay guushii weyneed oo lama ilaabaanka ahayd 35,000 oo arday inay galeen imtixaan kaasoo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare 10 arday u horeyso inaan ku lahaano 2 arday runtii waxay ka mid tahay guulihii alla noo waafajiyey aan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxaa sabab u ahay ama sal u ahay tartanka waa muraajaco ama dib u muraajaceen joogto ah waa sheegid joogto ah oo lagu sheegayo waa sheegid mar walba lagu sheegayo su'aal iyo jawaab ardayga fadhiyo wuu faa'iiday ardayga tartanka fadhiyo su'aasha ka jawaabaan wuu faa'iidaa inta way wada faa'iideen waxaa kaloo ka mid ah guulihii sanadkan guushii lama ilaabaanka ahay jaamacadda muqdisho su'aalihii oo soo diyaarisay oo lagu tartamayay telefishinka muqdisho cable weliba gaar u ahayd gabdhaha oo keliya tartamayay kaalinta koowaad way noo keeneen maasha allah runtii waxay ka emeeyeen guulihii sanadkan oo ay saad u ahay ama dowladda u ahay tartanka iskuulka lagu qabto oo macallimiinta qaar allah ka siiyo ay dadaalka ay bixiyaan oo ka mid yahay sidoo kale waxaa ka mid ah guulaha waaweyn telefishinka universal oo meelo dhab la soo gaaray inkastoo sida kuwan oo kale kaalinta koowaad aan naqan hore sanadka hore kaalinta koowaad aan ahay sanadkaana dadaal meel dhow la soo gaaray marka waxaas oo dhan ama dadaalkaas oo dhan oo magaca iskuulka uu leeyahay waxaa asal u ah ama sal u ah tartankan la qabanayo marka waxaan aad u dhiirigelinayaa tartamayaasha inay dadaalaan waxaan aad iyo aad kun iyo kow jeer iyo tiro aan la miisaami karin aan u mahadcelinaynaa guddiga tartanka iyo macallimiinta runtii aad waxay u yihiin hawl aad u adagna waa wadaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan inuu ku duwnaado sanadkii hore sanadkan wax badan ama guulo ka badan guuluu sanadkan soo eegay guulo ka badan aan rajaynaynaa insha allah bimilaa karim waxaad dareemayseen tartanka siduu ku bilaaban jiray si ka duwan oo ku bilowda maanta sanadadii hore waxaa tartami jireen arday fasalka waxaa lagu soo xuli jiray oo keliya 10 arday oo tartanto maanta fasal kasta wuxuu ku kooban yahay 2 tartamayaal sababta loo yeelo sabab kale maan waa in aqoonta la sii baahiyey insha allah marka hala dadaalo akhriska hala badiyo tartanku waxa lagu tartamaayo waa aqoontana waa wixii macallinka darsiga uu ku siiyey oo dib u soo muraajaceysay marka ku dadaal inaad dib wax u akhriso insha allah bidillah kariim tartanka ma ahan cidii laga badiyo in aqoon ahaan laga aqoon badan yahay tartanku waa nasiib iyo aqoon israacsan ilaahay hala baryo hana la dadaalo leena la isdhiganan haddii maanta laga badiyo guushii qayb ka mid ah gaartay beriyaha guulaysanayay haddii laakiin maanta aad badiso haddii maanta badiyay weligeed guushayna beriyaha laga badi karaa marka tartanku waa cadi madow dadaalka la badiyo insha allah bidillah kariim